وأحمد عمر وجوجو مقدشو وحواي سديت وممكن بيشي مثلا وحواي نوفمبر واي waxaan rabnaa caawa waxa waaye 15 su'aalood insha Allah aan ka jawaabin hadii Ilaahay yiraahdo noo ogolaado Abu Cabdallah noo tirnay Abu Cabdallah ma ku jira Abu Cabdallah noo furda ku jirto Abu Cabdallah Abu Cabdallah noo furaayo Abdulqaadir injineer Abdulqaadir noo sameeyo abdeed noo sameeynaa insha Allah asana su'aal ka jawaabay anna weyd hogaamina insha Allah wa idin daadihinaya biidni Mawla Abu Cabdallah عبد الله كجرنا مغنيسو بروفيسور رشيد مجرى بروفيسور رشيد مجرى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم عبد القادر أبديت سمي أبو عبد الله بن سو مقرين أبديت نو سمي وقت وايري هشاء عليها رواق بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد وحواي عاوة وهبينكيني أن أبديت كريني وحي أسبوعا نوقف صومي الحمد لله كبعي ويدق عقضي ميل ونكسن ومريسا وحوال بوا نوسو هقاقين الحمد لله إلا أنك أهين انتي علمدي أردتي دي أو تاغن culimadiina hadda meel fiican ay noo maraysaa alxamdulilah shuyuukhda waaweyn waan wada hadalnay waxaana go'aansanay in isbuucan soo socda hadduu alliiraa hadda beri bilaabmaya ma ahna kiisa kale ayaa la ballamay oo waxaana lagu ballamay in culimada oo dhan hal meel lasugu keeno oo hal meel aan maaragtay maalintaas aan wada fadhiisano oo aan update siino kobciya waxay tahay leanna culimadii waa la wada diray laakiin dhammaantood way ka wada gaabsadeen sababtoo ah wixii maba fahamsanaba marka waxay yidhahdeen si culimmadaas waxaan ay maaragtay u fahmaan marka hore waa in presentation la siiyaa presentationkaas ayaa maaragtay wax ka soo baxayaan biidnillahi kariim waana maaragtay inta badan dadka culimmada hadda aan la xiriirinayn maaragtay barnaamijka ku waafaqsan yihiin marka culimmada noocyadeeda kala duwan oo dhan insha allah waxaan isugu keenaynaa maalinta isbuucan soo socda kiisa kale adiga talaadada ama isniinta midood unbay noqonaysaa hadduu alliiraa in maaragtay meel laisugu keeno oo aan presentation siino oo markaasi ay meeshaasi go'aamada lagu gaaro ka horna waxaan nidhi bal soo akhriya in sharcigaas maalintaas si aan maaragtay jawaab fiican u helno marka waxaan rabnaa kale inaan boros garayno applicationkii oo appkii lasoo download garaynayay play storeka iyo muxuu ahaa iyo apple storeka la geyn lahaa iyo google storeka inaan yacni process garayno oo aan yacni geyno waxaa naga maqan license ayaa loo baahan yahay layiri si maaragtay ay usoo maaragtay cloudka loo dhigo applicationka 15 beri ilaa 15 berina qaadataa ha layiri marka shahaadadii aan wasaaradda ka soo qaadanay licensigana wuxuu dhacayaa January marka hadda inaan cusboonaysiin intaysan dhicin ayaan go'aansanay marka isbuucan soo socda insha Allah waa soo cusboonaysiinayaa iyadoo hal sano ah kadibna maaragtay kaasna waa lasii boros garaynayaa baaladii muxuu ahaa advertisementigii waa u gudbinay ninkii oo muxsinka ah oo lacagaha bixinayay advertisementiga tviyada iyo kulli maaragtay yani geyn lahaa asagana waa u dirnay macal advertisementigii codkii iyo qoraalkii iyo idaacadihii listigooda oo dhan waa wada dirnay idaacadaha ugu muhiimsan raadiyo ha noqdo oo meel walba ku yaallo idaacadaha maaragtay yani oo fm-ka oo maaragtay ka baxa soomaaliya oo dhan iyo kuwa maaragtay telefishinada caalamka dhan laga daawado intaba waa loo wada diray listigooda qaar waxay yiraahdeen yarka hadda codkiisa meesha advertisementiga codka sameeyey asaga wuxuu u shaqeeyaa idaacad la yiraahdo 5 Somali TV idaacad la yiraahdo ka shaqeeya asaga wuxuu yiri waaba sii bilaabaa uu yiri aniga oo hawsheeda maaragtay waaba sii gudagalaya advertisement inaan sii bilaabo taasuu noo sheegay marka wax walba waa noo dhammaystiran intaas keliya noo hartay marka hal la dulqaato walaalayaal wax walba waxa waaye waqtiga ilaahay ugu talagalay ay bilaabmayaan ogaada waxaan wax bini aadam gacantiisa ku jira maahan wax ilaahay gacantiisa ku jira waa
ilaahay maalintuu ogolaado unbay wax bilaabmayaan. marka degdega faraha badan ee la leeyahay maaragtay yani baa la bilaaba iyo waxbaa haysta iyo waxaas waxba kama jiraan. xag ilaahay ayna kasoo dhammaanin. maalinta ilaahay xaggiisa ay kasoo dhammaato cid hor istaagi karta oo bini aadama ma leh. marka taa ku xisaabtama, kobciya insha allah way dhaqaaqaysaa biidni illaahi kariim. intii sanadka aan la gaarinna daahfurkaasi waan samaynaynaa. sanadka cusub intaan la gaarin waxaan rajaynaynaa inaan 1 milyan iyo wax ka badanba aan gaarno biidni illaahi kariim. sida hadda hadalhaynta ugu waaweyn ee hadda magaalada muqdisho waa kobciye. yani fadhi ku dirar kasta markaad tagto kobciye hadalkiisa la hayaa, meesha siyaasadda laga hadli jiray. marka kobciye aaday maaragtay u baxday oo u baahday. marka biidni illaahi kariim ilaahay noo dhammaystiro. waa wax maaragtay ilaahay maaragtay oo aan ugu dhowaanayno xaqiiqatan, oo annagana aan waddankeena iyo maaragtay iyo ummaddeena iyo maaragtay aan ku badbaadsanayno biidni illaahi kariim. marka hawsha meeshaasay maraysaa. marka intaas ayaa abdeeda oo aan idin sheegi lahaa. applicationka waa diyaar. wax haba yaraatee sawirka aan meesha soo dhigay waa applicationkii, sawirkiisa waa dashboardkii applicationka waaye. laakiin weli ma la soo degsan karo, lama soo degsan karo. waxaa ka jawaabtay walaasheenna maaragtay umu kamaal, ilaahay khayr ha siiyo, oo 24 saac meesha dul taagan oo dadka walaalaha maaragtay qancinayso oo u jawaabayso. ayadoo kalena ilaahay noo badiyo. waa qof aad iyo aad u khayr badan runtii, oo jecel maaragtay inay ummaddan yani horumarto. marka ilaahay khayr ha siiyo, iyadoo kalena ilaahay noo badiyo. waa jiraan wiilal kale walaalo kale oo maaragtay ka hadla meesha oo aad iyo aad maaragtay wax ugu jawaabo. way jiraan ayagana maaragtay magacyadooda hadda mashaan ma soo koobi kara, laakiin waa badan yihiin. ilaahay khayr ha wada siiyo dhammaantood. marka qof walba oo fahamsan kobciye qofka kale walaalkiis inuu u faa'iideeyo waa muhiim. kobciye cid kaale male, cid kaa xigtana malaha. waxaa loo baahan yahay qofka walaalkaa su-aasha uu kusoo weydiiyo inaad uga jawaabi karta. haddaabaad garanaysidba su-aashaas inaad ka jawaabi kartid, bal isku day. marka umu kamaal markasta waxay tidhahda dadka maamulka aniga meesha ka mid maahi. kobciye walaasha waa la wada leeyahay, adigaa leh maamul iyo wax walba adigaa isku ah. kobciye cid kaale maaha. marka waxa waaye su-aasha markaa ka jawaabaysid ha dhihin aniga kobciye maamulkeeda ka mid maahi, isaas maahi. annaga ku meel gaaraanahay. annaga waxoo dhan maaragtay dadkeenoo dhan hadda ku meel gaaraanahay. oo meeshaan marka in la wada leeyahay in la wada caddeeyo ayaa loo baahan yahay. marka aniga intaan kugu dhaamo inaad tidhahda lagaa rabaa. laakiin ha dhihin kobciye maxay to aniga maamulkeeda ka mid maahi ha dhihin. waad ka mid tahay maamulkeeda, habeen iyo maalina u taagan tahay. taasaa maamul ah. taagnaanshahaas meesha aad taagan tahay naftigeeda maamul ah. marka walaashay saas waa umu kamaal. ilaahay khayra ku siiyo, ilaah ku karaameeya meel kastood joogto insha allah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو عبد الله ونوتر نيسا هذا بلابنا وقت وحوجا وحوان كعوني وحنسينا يا محمد. محمد لو بطم كوين أو دحى تابو مركو جرين نقضوا عقارته. هذا سؤال هذا ماشي جوكته. محمد هاي سولو. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملي مقلا ولا يا وعليكم مقلا والسلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماشي سؤال reer kobciye dhammaantiin waa idin salaamay. salaamu ullahi calaykum. asalaamu calaykum waa idin leeyahay. dadka hore aan ku jiraa dabcan maxaan lahaa waxaan kasoo hadlaa UK. waqti badan ma rabo inaan idinka lumiyo, kolley wax badan waa ka fahansanahay alxamdulilah. su-aashaydu waxaa waay professore, dhalinyarada ka faa'iidaysanaysa ma ku jiraan dhalinyarada 30 sano ugu dambeeya qurbaha ku dhalatay, mise hadday rabaan inay kobciye faa'iidada wax ka wadaagaan waa inay Afrika tagaan? kuwa wax bartay oo weli aan waxba ma arkin oo aan camal haynin oo ma dibloomeen ama shahaadooyin ama jaamacado dhamiya qaarkood waa laga hel oo shaqo haysanin. marka UK ha joogaan ama westernka meel kasta, maamooyinka annagoo kale oo last 30 year ku dhashan ciyaalka meelahan ma noqon doonaan kuwa ka faa'iidaysta kobciye, mise waa dadka dhalinyarada Afrika joogta kaliya? barakallahu fiik. injineer cabdiqaadir. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بارك الله فيك ولا شيء. فاطمة هذا ما سنتهي walaalay marba hadday Soomaali yihiin kobciye xaq ay u leeyihiin. محمد أيوب قرن لكن صفية على ها إنجليز صفية محمد أوكي. walaashay waa mahadsan tahay. wiilasha aad sheegaysid marba hadday Soomaali yihiin xaq ay u leeyihiin inay ka faa'iidaystaan kobciye oo shaqo ka helaan oo yani contributionkooda ay sameeyaan oo cilmi hadday leeyihiin cilmigooda usoo kordhiyaan xaq ay u leeyihiin.
teeda kale kobciye waxaaba maaragtay brogaraamkeena waxaaba ka mid ahba soomaalida qaxday ee ka tagtay qurbahaas waxay u tageen nolol inay nolol fiican helaan haddii waddankoodii noloshii ay xag u raadsadeen laga helayo u malayn maayo hal qof inuu ku harayo halkaas isaga meesha ay joogtaan marka dhammaantiina waddankiina inaad kusoo laabataan ayaan maaragtay kobciye ka rajaynaynaa inay ilaahay noogu suurtageliyo marka xaq ay u leeyihiin wiilashaas aad sheegaysid dhammaan qof kasta oo kobciye mambar ka soo noqdo priority asaa iskale inuu shaqo ka helo haddii laga waayo qof aqoontii loo baahnaa oo kobciye reer kobciye laga dhex waayo unbaa bannaanka la aadaya laakiin priority number one-ka waxaa iskale dadka iskale mambarka ka ah insha allah su-aasha labaad waa mahadsantaha maxamed waxaan siiya nuuro cabdulqaadir nuuro cabdulqaadir soo dhow nuuro batamka dhaxriix markuu cagaarto hadal meeshaad joogto iyo su-aashaada nuuro cabdulqaadir soo dhow codkaa kor u qaad nuuro waxaan rabaa waqtiga in laga faa'iidaysto bata ka ballaarane hoose taaba dheh waa u furan yahay codka waa u furan yahay haya nuura waa hadli laadahay qofka mi habbi u qoran tahay ku siin mayno annaga ilaa magacaaga uu ka noqdo magac soomaali qof magac soomaali aan wadanin fursad lama siinayo bal waxaaba laga yaaba meesha dhanba in lagaa tuuro walaalkii haddaad soomaali tahay magacaas iska bedel magacaa ku soo qora ama kan ugu horeeya ha noqdo ama kan ugu dambeeyo saa adiga jeceshahay laakiin mi habbi annaga soomaali uma naqaano marka taa la soco magacaaga iska soo bedel kadib lasoo galo maxamed jaamac batanka hoose taabo maxamed jaamac batanka hoose taabo weyn dhexe taabo markuu cagaarto markaasaa waa su-aasha sheegay meesha joogto nuur waa ka baxdaa nuura ma ku jirtaa nuura ma ka bixin waa joogaa hadal waa hadal leedahay maxaa hadal soo daa su-aashaada soo daa meesha joogto bisha 11 ballantu in maxay tahay xafiis la furay maxaa isbedelay injineer cabdiqaadir walaali update-ka ma maqlayn miya haddeertaan update-ka aan bixinayni soo ma maqlaynin anaga bisha 11 bilowgeedaan jeclayn update-kaas inaan maqashaan rabay anaga maahan cilladda annaga inay kobciye waa hornoo furanta waa iska jeclayn laakiin turxaan bixin iyo wax walba inay boros maraan ayay u baahan tahay annaga marka sharciga culimmada inaan yacni ansixin ka soo helno ayaan ku qasbannahay culimmadaasoo ansixinin sharcigaas oo kobciye ay leedahay kobciye ma furi karno laakiin wax kasta waa naga wada idin lihiin marka intaa un baana haysta okay waa mahadsantiin marka culimmada ilaa intee la sugaa culimmada insha allah adig isbuucan soo socda kiisa kale waa kasoo kala dhammaanaynaa biidnillahi kariim adig intaana november december bilowgeeday u badan tahay in kobciye daahfurkeeda uu dhacayo ama ilaa bartamaheeda ama yani isbuuca ugu horeeya oo maaragtay yani oo december meelahaasaa laga yaabaa in daahfur la sameeyo insha allah hadduu waa la yiraa nuur waa maasantahay أحمد محمد هنا نور اسكت أحمد محمد سوداو محمد جامع ليش محمد جامع ميل بوقو جوجا انجينير hadduun hadli karin aan ka leexino meel buuqu jooga malaynaa maxamed jaamac hadal maxamed jaamac adaa lagu xayiran yahay iska xir codka waay iska xir codka iska xir hadde bata ka ballaaran taabo barnaamijkii kobciyey bata ka ballaaran taaba codka iska xir haddaadan su-aal qabin maxamed jaamac أحمد محمد سودو بطن هو وين تابو وعقارتها ماشي جوبتي سؤال قلب أحمد محمد
أحمد محمد سودة أحمد. السلام عليكم وعليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله. وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واكم مقلنا محمد ماشي جوكتي سؤال waxaan joogaa London UK سودة. marka waan dhawahay waa aad iyo aad u mahadsantihiin su-aasheedu waxa waaye maaragtay barnaamijkan kulley anigu horay waan la socdaa isbuuc hore waan joogo waan ka qayb galay laakiin ma ogi hadda kahor waxaan maqlay inaad tiraahdeen waxaan u gudbinaynaa dowladda xaggeeda golaha wasiirada iyo waxaas dhan maqlaan malayn hadda kahor marka arrinkaas ma jira oo ansixin xaggaas dhinacaas ku saabsan baarlamaanka xaggiisa ah waxaas ma jiraan saas ayaan maqlan filaa hadda kahor waa mahadsantihiin يا عبد القادر. axmed walaalkii waa mahadsan tahay ilaah ku barakay waxa waaye waxa loo gudbinaya golaha wasiirada kobciya ma ahane waxa waaye waa sharciga national levelka ah oo cooperatifyada ku aadan ilaan waddankeena waxaa jira waagii hore oo dowladdii hore ee maxamed siyaad barre waxaa jira cooperative sharcina wuu lahaa dastuurkana wuu ku jiray dastuurka ku-meelgaarka ilaa hadda wuu ku jiraa sharciga cooperative in waddanka uu leeyahay wuu ku jiraa laakiin active ma ahan sharciga marka waxaa la rabaa cooperatifyada waagaa jirayna iyo cooperatifyada hadda casrigan jira isma laha cooperativeka waagaa jira nidaam shuuciyad ayuu ku dhisnaa oo dowladda maamuli jirtay qofka cooperativeka madaxa ka ah ee ururka dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka soomaaliyeed la oran jiray waxaa madax ka ahaa qof ay dowladda magacawday ayaa madax ka ahaan jiray nin warsame indhool la dhihi jiray ayaa maaragtay madax ka ahaan jiray wixii ka soo baxa nidaamka ay u dhisneed shaqaalaha wixii ay shaqeeyaan oo ka soo baxana waa laga qaadi jiray oo meel waxaa lagu xariin jiray oo adc la oran jiray iyo dukaamo dowladda la oran jiray oo wax lagu iibin jiray oo dadka ay ka iibsan jireen oo rakhiis ahaa nidaamkaasuu lahaa nidaamkaas iyo nidaamkan isma laha nidaamkan kobciya waxa waaye nidaamkan reer galbeedka uu dhisan yahay ama international cooperative alliance ay develop garaysay ayuu u dhisan yahay marka waddan walba wuxuu leeyahay national cooperative policy wax la yidhaahdo ama siyaasad guud oo qarameed ayaa jira waddan kasta uu leeyahay marka maadaama dowladdeena aysan lahayn ayaa waxaan rabnaa annaga inaan dowladda ka caawino inaan bolicigaasi develop garayno oo national levelka ilaa waxaan rabnaa cooperatifyo badan inuu waddankaasi i samaysto maaha in anaga kobciya keliya aan ku xayirnaanayno cooperatifyo waa inay bataan mar kasta oo cooperative u batana waddanka dhaqaalihiisa ayaa kor u kacaya marka waxaan rabnaa national level waa golaha wasiirada in la mariyo oo bolicigaas baarlamaanka la mariyo oo madaxweynahan uu saxiixo taas waa hadafka marka taas waa waxa laga hadlayay ma aha kobciye waa private oo shacabka soomaaliya ay leeyihiin uma baahna inay dowladda ansixiso laakiin dowladda in lala socodsiiyo waa muhiim waana la socodsiinay wayna ka warqabaan waana u bogeen haddana maaragtay waa ballansannahay mar labaad inaan si maaragtay xilliga maaragtay aan rabno daafurka marka aan samaynayno oo xafladaan samaynayno ka hor waa inaan ayaga la kulannaa oon u sheegna arrintaas waa muhiim taas intaas waa waxaan su-aashaas ku weydiiyey waxa waaye waxaan ogta hadda ka hor in shirkadda barakaad lagu calaamadeeyey inay dadka terroristaha iyo waxaas ay taageerto ma fahamtay marka wax walba iska dhici kara adduunkan maanta taas daraaddeed ayaan ku weydiiyey bal arrinkaas in haddii dhacdo lacalla in dowladda soomaaliya ay og tahay oo arrinkaa laga hortegi karo berito kale waa mahadsantahay axmed waxaan siinaynaa xayir cilmi cabdi xayir cilmi cabdi badhanka hoose oo weyn taabo markuu green noqdo markaa waxaa meesha joogtay su-aasha keen xayir cilmi cabdi xayir mi maqlaysaa badhanka hoose oo weyn taabo oo buluuga markuu noqdo green hadal meeshaa joogtay su-aashaa soo daa xayir soo daa xayir waa lagu siiyey batanka ballaarne hoose taabo dheh batanka ballaarne hoose taabo batanka taabo cagaara ku noqo markuu cagaarto hadal xayir waa leeyahay waxaan siinayaa qof kale saciido kaarshaan siinaya saciido kaarshe batanka dhexe taabo meesha joogtay su-aashaada saciido soo dhow saciido السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سعيدة ماشي جوكتي سؤال شاب waxaan joogaa Kenya walaalo سودو ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu magacaas la baxay kobciyahaas ilaahay inuu nooga dhigaan ka baryaynaa آمين marka labaad wadankan Kenya waxaa ku nool Soomaali aad badan qaala ku haysata marka ma dhici kartaa xafiisyada horeba in la halkaan xataa laga furo جير عبد القادر saciid walaasha waa mahadsan tahay ilaah ku barakeeyo waxa waaye kobciye meel walba oo xubno ay degan yihiin xafiis way ku lahaanaysaa insha allah biidnillaahi kariim sababtaa xubnaa naga degan resourcea naga yaallo asadaa yaallo marka waa ku qasbannahay meel walba oo maaragtay ay leedahay laakiin annaga taargetkeenna waxa waaye geyiga soomaaliya soomaalida geyiga ay degan yihiin ama soomaali kenya ha noqoto ama etoobiya ha noqoto ama jabuuti ha noqoto iyo soomaali weyntii caadiga ahaa oo dhan ayaan rabnaa inaan annaga aan resourcigeena gelino hantideena inaan gelino maalgelin ku samayno taas waa hadafka kobciye biidnillaahi kariim annaga dhanna waa wada leenahay oo cid gaara u leh ma leh soomaali isir soomaaliya oo dhanaa iskale marka meel hebel kaligeeda lagu horumarina iyo midna ma la dhihi karo ilaa hadda ma dhihi karno meel hebela lagu horumarina meel hebela lagu horumara ma dhihi karno waxaana xukuma hadba yani xubnaha soo gala meesha ay u badan yihiin ayaana xukuma laakiin meel walba in xafiis laga furo qorshaha waa ku jiraa biidnillahi kariim okay su'aasheedaas kala labaad waxay tahay sidee ayaa looga ilaalinayaa dadka oo criminalka walaal su'aalahaas dhowr jeer ka jawaabnay inaad su'aalaha kale soo dhegeysataa fiicnaan lahayd qofka criminalka ah maxaa criminal ka dhigay marka taas inaad isweydiisaan rabaa kobciye waxaa rabaa in problemka jira inay solution la imaado yacni solutionkii waaye waxa kobciye ay u taagan tahay qofkan markuu criminal yahay maxaa ka dhigay criminal su-aashaas ayaan rabnaa inaan xallino beeska qofka dhibka u geystay inuu criminal noqdo waa maxay hadduu faqri yahay faqrigaas qofkaas inuu ka baxaa loogu talagalay oo wanaag qof wanaagsan noqdo ma garatay marka hadafka taas waay haddaad criminal aad xuquuqdo cadow kale kugu noqonaya soo maha adaa cadow kale samaystay marka waxaan rabaa qofka criminalka ah inaad criminalnimada aad ka soo saartaan rabaa oo aad ka dhigto qof wanaagsan oo diintiisa ku dhaqma oo wanaag iyo maaragta shacabkiisa jecel dalkiisa jecel ummadiisa jecel oo wanaag ka talinaya inuu noqdo ayaa rabaa saa u rogto qofkii laakiin haddaad tiraa criminal waay macnaha ma soo gelaya kobciye haddaad tiraahdo adigana criminal kale kugu noqonayaa wax xallisana ma laha okay saa waxaan u leeyahay hadda wadankan aan joogno kale example wadamadan sharciyada kala dambeeya jooga waxaa lagu leeyahay booliiska waraaqa keen yacni baa lagu diraya haddaa shaqa raadsidoo kale annaga sharci wadan kasta sharcigiisa ku dhaqmayna wadan walba sharciga u goosto annaga mogtahay dowlad ba nihin annaga dowlad ba nihin cooperative baan nahay iskaashataan nahay iskaashatada sharciga dowladda ay kusoo rogto waa ku qasbannahay inaan ku dhaqanno maamulka markaa meesha jira sharcigu wuu ogol yahay inaan maaragtay u samayno ayaan samaynayna hadduu la yidhaah laakiin ma ahan qofkan criminal way darteed ugu joojin mayna annaga kobciye inuu mambar ka soo noqdo waxaan siinayaa cabdi ganay soo dhawaaw bottomka hoose buluuga taabac green uu noqonaya markaas saciid iska xir cabdi ganay soo dhawaaw cabdi ganay soo dhawaaw gacanta kuu taagan haddii kale gacanta dami cabdi ganay soo dhow haa su-aashaada meeshaa joogto waa lagu siiyey codka kor u qaad cabdi ganay codka kuu furan yahay hadal okay waa hadli waay soo ma batanka ballaaran taawale jire dadka ma yaqaanin inta badan waa hadda badh way soo galeen bogtahay waa loo batanka ballaaran hoose qofka taabto may asaga ay ka xiran tahay asagana inuu iska furo waa asagana qofku waa inuu iska furaa batanka ballaaran waa inuu taabtaa qofka waa ku jira soo dhow cabdi soo dhow waa kaa qaadnay soo dhow meeshaa joogtay su-aashaada walaal ani su-aal ma qabo see isku diiwaangeliyaa
diiwaangelinta lama gaarin su-aasha daa su-aal qabin iska xir waa dhimantahay diiwaangelinta goormay bilaabay marka walaalow hadda waa laga sheekeynayay in yar ka hor haddii uu ku dhaafayna waa fiican waxaad ka dhegeysan kartaa recordingka waa lasoo dhiga hadhow meesha lasoo dhex dhiga ay ka dhegeyso in yar ayaa inoo haray marka adiga sanadka cusub intaan la gaarin waxaan rabaa inaan daah furno oo la bilaabo diiwaangelinta haddii waa la yidhaah okay waa garsoon cabdigeni waa mahadsanta walaalkay waxaan siinaa nadiifo xasan soo dhawow bottomka hoose oo buluuga taabo bottomka taabo waa markuu cagaar noqdo su-aashaada jawaabtaada soo daa su-aashaada iyo meeshaad joogto nadiifo xasan soo dhawow waktigan waa qaali wakti waa nugu yaryahay haya nadiifo waa ku maqlay nuura ka bax adiga nadiifa soo soco ka hadal soo daa su-aashaada waa ku maqalnaa waxaan rabaa inaan weydiiyo qofka hadduu waxana qorin waxana aqrin uu rabo xibin inuu ka noqdo su-aashaas rabaa والله نظيف ولا حاجة إنكسو بركو أنا جعلين نو شيء تماشى جوتيد يا مقعدة والسلام عليكم السلام عليكم أنا كسو قشاف عنا الهيد هل بلا وير ونصو قادي بركة بس لما لها قف وح آخرين وقفنا وح آخرين بقى كبعية حبينه كانوا قنكرة واحد بعت ملا ولا حاجة قفك استجان إن شاء الله اسحنت وما سنت وحن وعي أم كمال صقل أم كمال صقل بطن كوسة تاو أم كمال معلومة ولا يغنى بطن كوسة تاو اسود ده شو أسد نظيف اسكحر ايه بطن كوسة تاو يحر أي أم كمال نظيف بس بطنك هو حتى هذا بلوغ يكون نقن بطنك بلارن نظيف تاو بطنك بلارن تاو بلوغ يكون نقدين ايه أم كمال أو ولي ماذا حر ولي بطنك ماذا تابن اوكي هذا اوكي أم السلام كمال عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سوداو waa dhowahay maasha allah tabaaraka allah ilaahay ha idin barakeeyo ani wax su'aala ma qabo laakiin taleefankayga un baan fiirinaya ciladaa markii hore i haysatay laakiin hadda ciladii waa ka baxay waxaan rabay inaan dhaho walaalkay cabdiqaadir waa mahadsan tahay maaragtay waxaan u dhahaa maamulka kama mid ihi ma ahan inaan leeyahay yani kobciyo waxba kama lihi laakiin waxa waaye xoogaay su'aalaha maaragtay dadku ay qabaan ayaa haddaad tiraahdo maaragtay de maamulkay kuu malaynayo waxay ku leeyihin haye see wuxuu يعني حتى dad waxaa jira maaragtay si oo luuqa ii soo waco maaragtay mar walba su'aalo i weydiiyo marka waxay dantu i biday inaan dhaho maaragtay war anigu maaragtay idinkaan idin lamid ahay kaliya waa idinka soo horreeyey intaasay iga tahay waa mahadsantahay marka waa mahadsantihiin idinkan ani wax su'aala ma qabo aadaan ugu faraxsanahay markastana ilaahaan barinaa oo dhahnaa ilaahay subxaana watacaala ha noo soo dhammaystira hana noo taabageliyo biidni illaahi kariim waa idin salaama assalaamu calaykum السلام أم كمال وحيانا كوكو دارو مربع هذا السؤال كي جوابي سمامل كتكملته maamulka ma lagu sheegayaba waa un intaas maaragtay marba su-aalihii haddaad ka jawaabaysid oo hawshii u taagan tahay habeen iyo maalin u taagan tahay yani waad yani maamulkaad ka mid tahay maamulka lagu sheegayaba waa intaas marka qof cabsanna waa tahay si fiican maaragtay oo ugu dherigsan kobciye oo wax walba su-aalaha ka jawaabi kara maanta oo aad aan u kalsoonaha tahay xaqiiqatan marka saas ku sii wad adigoo kalena ilaahay noo badiyo maaragtay waa muhiim arrinta kale maalin wata mar aad ka cabaadaysay meesha waa laga saaray waxaas aad dhahaysay meesha horta kobciye cid wax lagama saaro qofka laga saaro waa qof ajanabi ah laakiin qof soomaali ah waxaa jira qof oo cay soo qoray oo eeyo dhab ah ayaa tihiin wax noocaas yiri waa ku jiraa qofkaan lagama saarin leannu qof jaahil ah waaye oo wixii aan waxba ka ogeyn marka qofkaas isaga ah faraha laga qaadaa maaragtay ilaa waxaan uu ka fahmayo waa qof soomaali ah
laakiin oo ka jaahilsan waxa aan wadno marka qofkaasoo kale waa loo cudur daaraa marka qof meeshaa laga saaraayo haba yaraatee male kobciye qofka markuu yani ajanabi yahay keliya unbaa laga saaraya marka qofka aniga igu dhacday aniga isbuuc dhanan ka maqnaa meeshan oo telegramka dhinaciisa cilada iga timid isbuuc dhana iga maqan xataa waxaan moodaya in laga xiray oo aan yani maamulkii markaan wacayna maaragtay wax walba sida normal ay ku yihiin ay yidhaahdeen oo sidaadiya tahay marka aniga igu dhacday marka qof kastay ku dhicaysaa waxaas ma aha qof oo target gaara oo laga dhigtay iyo qof laga saaray iyo midna ma laha in la iga saaraayo iyo in waxaas kuma fakerin aniga waa cilad xaggayga inay tahay laakiin su'aalay iga ahayd sababta markii aan wax badan fikiiriyey waa ku fahmay laakiin dad kaloo jira oo waa laga saaray waa la xakameeyey iyo wax noocaas dhahaya ayaan arkay marka cid laga xakameeyey meeshan ma laha qof walba sidiisii waa yani qofka asaga cilad xaggiisa haysata ayaa maaragtay ayaa jirta marka qof kale oo maaragtay uu ku eedeyn kara haba yaraatee ma laha kobciye cid wax ka saaraysa marba haddaad soomaali tahay waxa way kobciye meeshaadii waa cid kaale male maasha allah maasha allah waa fahmay maasha allah salaamu calaykum mahadsan tahay jazaak allah waxaan siinaynaa xamdi cabdi aadam soo dhawo batanka dhexe taabo weyn marka uu cagaarto su-aashaada meeshaad joogto soo dhawo xamdi codkana kor u qaad حمدي عبد آدم go ahead والوسيم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حمدي عبد آدم waxaan joogaa Puntland garowan joogaa su'aashaan qabaa waxay tahay Telegramka waxaan ku arkayay listigaas oo Muqdisho iyo degmooyinkeeda gobolada qaybtood dadka isdiiwaan gariyay listi qayb ka mid ah marka Telegramka waxaan ka goobay dadka Puntland listi Puntland aan ka baaray kumana arag marka maxay ku dhacday su'aasha aan qabaa waxay tahay ma dadkan isdiiwaan gelin midda labaad Telegramka iyo waxa waa ku jira ismana aanan diiwaan gelin anigu oo hal ay qoro ma oran systemka marka aan ku diiwaan gashamayo miyaan isqorayo hal ay qoraan dhahaya mise saasaaban u diiwaan gashana markaan Telegramka iyo programka soo galo la qoro جار عبد القادر الحمد لله الله barakeeyo Puntland waa gobol waaye marka anaga gobol horta gobol wax la yiraahdo lama sameeyo waa degmo waxaan anaga target ka dhiganayno waa degmo liiska aad aragtay meesha Telegramka ku jirana waa liisas oo dadka degmooyinka ay isqorayaan oo is-abaabul ah waa is-abaabul oo maaragtay dadka is abaabulayaan oo maalinta diiwaangelinta ay bilaabato isla markiiba ay dad fara badan ay soo galaan meesha ayaa loogu talagalay ma ahan diiwaangelintii rasmiga ahayd ma ahan diiwaangelinta rasmiga ahayd markii la bilaabo waa la iclaaminayaa telefishinadaad ka daawanaysaa social mediaha ka daawanaysaa idaacadahaad ka dhegeysanaysaa markaasaad isdiiwaangelinaysaa markaasna form ayaad buuxinaysaa foomka haddii adiga buuxin karin waa lagu buuxinayaa oo qof oo maaragtay xafiis meesha ku yaalla ayaa ku buuxinaya kobciye ay leedahay haddii aad buuxin kartidna adaa buuxinaya oo si online aad usoo buuxsan kartid marka diiwaangelinta ma aysan bilaabin walaashay waana bilaabmaysaa Puntland iyo South West iyo Banaadir iyo waxaas anaga ma fiirinayn waxaan fiirinaynaa degmo Garowe Boosaaso Gaalkacyo saasaan u leenahay degmo walba marka inaysa abaabulo sababta saas u leenahay waxa waaye waxaan rabnaa degmo walba inta member ka jirta inaan ogaano si dukaankii iyo servicekii loogu sameeyo degmada ugu maaragtay oo xubno badan degmadaas ayaa ugu horeysa meesha laga furayo dukaanka ugu horeeyo taas waa micnaheeda waa garsooma waa dad ayagu anaga oo kale hadda intayada oo kale degmo Puntland oo kale baan dhahay Garowe oo kale aan dhahaynaa marka waa anaga oo isdiiwaan gelinay qof soo dhigay dabcan saasaan u fahmay qof ayaa noo wakiilsan oo waxaa jooga nin la yiraahdo muxuu ahaa maxamed cilmi guure oo noo qaabilsan inuu liisaskaas qora
marka adiga magacaaga ayaa soo dhigaysaa iyo inta qof aad rabtay inaad liiska aad kusii darto asagaa qaadaya oo liiska soo gelinaya meeshana soo dhex dhigaya gorow waa jiraa liiska waa ku jiraa waan arkay boosaaso waan arkay gaalkacyona waan arkay intaba way ku wada jiraan marka adiga magacaaga intaad soo dhigto meesha number looma baahna telephone number lama soo qoraayo laakiin magacaaga saddexan iyo degmada aad joogtid ayaad soo qoraysaa kadibna maxamed cilmi gooriyaa qaadaya asagaa kugu soo daray listigana meesha soo dhex dhigaya marka listigaas telegramkaana soo dhigay anaga telegram ubaan isticmaalnaa whatsapp ma isticmaalno meel kalena ma isticmaalno waa fahmay aad baa umahadsantihiin waa saas waay diiwaangelinna ma ahan waa is-abaabul la soco waan fahmay in la is abaabulo dad degmo walba dadka ku diyaarsan oo isdiiwaan gelin doono diyaarka ah in loo fahmo macnaha halkaas in laga ogaado waa sax waan fahmay aad baa umahadsantihiin hadda garowe iyo boocam garow waa weyn boocamaana ka dad badan oo hadda dadka liiska ku jira waxa waaye waa saddexaad waan malaynaa degmada saddexaad oo yani xamara ugu badan oo degmooyinka xamar oo degma ah ayaa ugu badan waxaa ku xigo maxaan ku idhahdaa jigjiga waxaa ku xiga boocamo intaasaan oga aniga marka dad kale waa jiraan oo minnesota iyo meelahaas jooga oo iyo ingiriiska iyo marka kuwaas kolley hadhow waxay kusoo biirayaan qof walba degmadu kasoo jeedo ayuu kusoo biirayaa marka waa saas insha allah dadku reergarow waysa isdiiwaan gelin waysa soo dhigin way badan yihiin baan filayaa iyaga laftigooda laakiin insha allah anaaba ka warqababa inay tiro badan yihiin oo dad badan ayaa jooga korgarow oo kor u dhaafay waa la socdaa waa soo dhigi doonaa insha soo dhawa mahadsan tahay aamina macalin aan siinaynaa aamina macalin batamka dhexe taabo weyn iska qaad su-aashaada meeshaa joogto aamina macalin aamina soo dhawow aamina macalin waa lagaa qaaday adna iska qaad batamka hoose taabo aamina batanka ballaaran taabo cagaarha ku noqdo batanka ballaaran marka taabata cagaar uu isu bedelaya السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سو داو سيتين رee kobciye caafimaadkiina aniga waxaan joogaa Sacuudiga ma garat سو داو ولا شيء ما شاء الله الله يبارك barnaamijkana wallahi markuu soo bilowday ilaa hadda waa la socday dadka mustamaciinta kamid ahaa inkastoo ay su'aalo waxa ay weydiinin oo kaliibiyada la dhageysan jiray kaliibiyadan ka fahmi jiray ma garat ما شاء الله marka kulli waa fahamsanaa laakiin hadda ani sideedii haddana u dhageysana hadda wax yar su'aal yar eega gashay gabadha haddii iga horeysay markaa su'aalo uga jawaabaysa waxaa dhahday muxuu ahaayta dadka dibadaha joogo hadhow waxay kusoo geli doonaan gobolada ay kasoo jeedaan mise anaa qaldan waa saas waa saas waa annaga ilaan waxaan dhisaynaa waa wadankeena gudihiisa moogtahay maahan dibadda u joogo qofka wadan gudihiisa waa waxa la dhisaya fiiri qof kasta meeluu kasoo jeedaa laakiin qofka iska ree xamar oo xamar ku dhasha anoo kale gobolkayga ma sheegana mase xaafadii aan ku dhashaaba taalee meesha aad degi doontida laga hadlayaa aamino meesha aad degi doontid ee mustaqbalku noqon meesha aad ka degi doontid Soomaaliya meesha laga hadlayaa si service-ka aad u hesho oo kobciya meeshaas meeshaas waa meeshaas aad iska diiwaan gelinaysaa degmada aad ku dhalata iska diiwaan gelinaysaa oo mustaqbalka aad degi doontid waa mahadsantihiin shukri jazaak allahu macnaha waxa waaye qofkan meesha uu joogo safar uu ku joogaa ma ahan meel uu degan yahay maahan dibaddaasaan sheegaya qofka dibadda jooga safar uu ku joogaa meeshaas meel uu degan yahay laakiin meesha uu marjac uu noqonayo oo asaga uu kusoo laabanayo degmada uu kusoo laabanayo ee asaga u qorshaysan degmadaas waa degmadu iska diiwaan gelinayo qofka waa garta annaga xamar le kusoo laabanayna xamarana lagu dhala xamaraan ku kornay xamaraan ka baxnay xamarkeena imaanayna insha allah biidnillahi tacaala waan idii hambalyaynayaa waa mahadsantihiin shukri jazaaka allahu khayr miisaankiina xasanaadka ilaaha idii saaro barnaamijkan ani waxaa u bixiyey barnaamijka amal aa la dhahaa waxa waaye soo rajo celinta soomaalida waaye insha allah midka lagu najaxo ilaaha ka dhigo waana mahadsantihiin waa maasanta aamina waxaan siinayaa nadiir maxamed xasan
nadiir iska qaad bottomka hoose oo weyn taabo bottomka hoose weyn taabo su-aashaada meeshaad joogto waa idin salaamaya dhammaan reer kubciye waxaan rabaa su-aasha ah howlihii oo kubciye xaggee wax marayaan masoo dhammaadeen sharcigii iyo kii kale softwarekii su-aashaasaan rabay inaan idin weydiiyo nadiir updateka hore marka lasoo dhigo qaybta hore dhegeyso updateka meesha ku jira insha allah meeshaan soo dhignay wixii update oo dhan aad sheegayso dhan meeshaan ka dhigna maaragta insha allah hadhow markii lasoo dhigo dhegeyso insha allah okay xusni maxamuud soo dhaw bottomka hoose taabo xusni maxamuud bottomka hoose taabo meeshaad joogtay su-aashaada xusni waa lagu sugayaa bottomka hoose taabo markuu cagaarta hadal su-aashaadan soo daa iyo meeshaad joogto sheeg السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سو دوال. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. صوماليا جوا وحن كجوا مقالة الجوهر. مقالة مقدشة. مقالة جوهر أنك جوهر. جوهر سو دو ما شاء الله سو دو ويلكم سو دو. وما سنتين هوش أو الدين هذا وما سنتين وأرين لو بعناي ومرك جزاكم الله خيرا. su-aashaan qabo waxaa waaye hawshan mudday soo socotay waxaan ula jeedaa diyaarinteeda iyo warbixinadeeda marka xaggee marjic ahaan intee ka heli karaa warbixinadaas oo iga horreeyeen xaggee ka heli karaa waa maasantiin asalaamu calaykum waa mahadsantahay xusni waxaa jira laba madashan hadda aad ku jirtid oo kobciyo cooperative ayaa ku qoran midna waxaa ku qoran kobciyo cooperative chat aa ku qoran laba madal waaye labadaa madal haddaad ku wada jirtid waad helaysaa qaybta kobciyo cooperative keliya ay ku qoran tahay ayaad ka dhexaylaysaa dhammaan su-aalihii hore u baxay oo dhan oo 35 miya maqaan meelahaas ay marayaan filayaa oo isbuuc inta su-aalo oo laga hadlayo o dhan meeshay ku wada jiraan recording ayagoo ah dibaad u dhegeysan kartaa insha allah waxaaba yaraatee oo meesha ka maqan ma jiraan hal bisa naga maqan hal isbuuc oo technical maaragtay nagu dhacday oo maaragtay aan recordkii meesha soo dhigi kari weyne oo gabadha walaasheena allah caafiya oo maaragtay hoodan ay naga maqnayd anigana farsamadii maanan aqoonin marka taasa xoogaa ciladaas ag jirtay marka inta kale meesha ku wada jiraan marka qaybta kobciyo cooperative ay ku qoran tahay raadi maaha tan kobciyo cooperative chat ay ku qoran tahay lama rabo tan kale haddaadan haysanin linkiga meesha walaalaha kusoo dhigayo si aad u gasho maaragta meeshaas asalaamu calaykum magaca oo meesha ku qoran meesha akaali kobciyo cooperative ku qoran marka meesha ma ku dhufan kaasaad ku dhufanaysaa kaasuu ku dhex jiraa wax alla waa screen madow waaye screen madow oo batanka baleyga uu dhexda kaga yaallo calaamadaasad ku garanaysaa su-aalaha meeshay ku wada jiraan okay xusni waa mahadsanta walkay soo dhow waxaan siinayaa canab salaad cali soo dhow canab batamka dhexe oo weyn taabo markuu buluug green isu bedelo su-aashaada meesha joogto soo sheeg su-aashaada meesha joogto canab soo dhawow codkaagan kor u qaad canab salaad waa lagu siiyey ee adna iska fur kan hoose taabo batanka weyn taabo السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته soo dhawow meeshaa joogta su-aashaada waxaan joogaa muqdisho suuqa xoolaha waxaan rabaa shiiqow inaan su-aal macnaha markaan kobciyo aan rabo hadda oo lacag la furo markii lacagta la dhiibayo qofka isku darajo miyaa hadduu hal mar sanadkii dhiibo iyo hadduu nus dollar bilaabo markaas oon la bilaabo xilligay bilaabanayso isku darajo miyaa taasaan rabaa inaan kala ogaado cabdiqaadir canab walaashi waa mahadsan tahay qof maalin qofka maalan kaba soo qaad inaan joogno 1 bisha January oo sanadka bilowgiisa maalintii koowaad oo sanadka inaan wada joogno tatana ka soo qaad adiga waxaad bixisay $182 iyo baraad bixisay oo sanadka oo dhan ah qofna wuxuu bixiyay nus dollar maalintaas ah maalintaas haddii lacagtaas wada shaqayso qofna waxaa u shaqaysay 182.5 ayaa u shaqaysay qofna nus dollar u shaqeeyey isku faa'iido ma noqonayaan maya
taasoo kaleeto waa qofka marka kasta waxaa u fiican inuu lacagta iska badsado oo $182 iyo barka inuu baxsado hal mar oo hadduuba awoodi karo laakiin hadduu awoodi waayo $nus ama maaragtay ama bil ayuu baxsanayaa oo $15 ah ama 6 bilood oo kaleeto wuxuu awoodi karo baxsanaya qof walba si maaragtay jeebkiisa ay ku xiran tahay laakiin xilli waxaa la wada gaarayaa biidnillahi kariim dadkoo dhan ay maaragtay lacag 180 iyo labadaas iyo barka ay wada bixin doonaan ayaa la wada gaarayaa oo qof walba lacag u haysan doono insha allah dhowr san kadib marka waa kaas su-aal kalan qabaa su-aasha kale waxay tahay macnaha haddaan hadda sanadkan aniga la baxo sanadka dambe qofkii asna kusoo biira asagana ma isla darajadii amase waa si dadku way sii kala horeeyaan waa la kala horeeyaa qof walba lacagtiisa inta sana u shaqaynaysa uu ka faa'iido badan yahay qofka kale haye walaa waa qof gadaal ka soo galay adigaa mar kastaba ka faa'iido badan oo hore usoo galay haye waay okay laakiin bilbil iyo laba bil iyo saddex hal mar waa iskugu bixi karaan sooma waad bixin kartaa sanad waad bixin kartaa bilaad bixin kartaa 2 maalmood waad bixin kartaa isbuucaad bixin kartaa qofka awoodiisay ku xiran tahay se maaragta jeefkiisa matalan maamada dawarsatoo kale maanta waxay soo hesho $nus way ka bixin kartaa way awoodi kartaa inay xitaa meel ay dhigato $nus ay dhurato oo kadibna hal maalin ay baxsato bil camal ama 2 bilood ama waxay rabto awoodi karta markaas marka qofka jeebkiisa ay ku xiran tahay sidoo asaga dakhli u soo galo haye walaa waa maasantahay waxaan siinayaa shukri abuukar batamka hoose weyn taabo markuu cagaarto shukri abuukar meela joogtaa may maqlaysaa batamka hoose weyn taabo markuu cagaarto meeshaa joogtay su-aashaada soo daa codkaagana kor u qaad shukri abuukar shukri batamka hoose weyn taabo markuu green noqdo cagaarto su-aashaada soo daa halkaa joogtana sheeg soo dhow shukri soo dhow halkaa joogtaa waxaan joogaa sweden magaalo dhahay orobro soo dhowaaw maasha allah allah ku barako muddo badan aan la socday marka waxaan rabaa aniga magaalada aad iska diiwaangelihayso waxaa dhahaya magaalada aan kusoo jeedo aniga muqdisho aan kusoo jeedaa mustaqbalka insha allah marka ma muqdisho aan iska diiwaangeliha amase magaaladan aan joogo waa maasanta walaashay horta waxa waay micnaha haa ku maqalnaa may maqashaa shukri may maqashaa shukri way maqashaa soomaa may maqashaa injineer ma lii maqlaa injineere aniga waa ku maqlaa laakiin shukri kuma maqlisa igu muuqato shukri mana maqashaa seeni isku diiwaangeliha waa raba shukri way maqashaa shukri soomaa shukri may maqashaa ima maqasho injineere internetka ka xunoo malnaa shukri may maqashaa hadda ani may maqashaa injineer ani may maqashay adi uga jawaab injineer su-aasheedu waxa waaye iyadu waxay joogtaa dibadday joogtaa waxay dibadda iska diiwaangelinaa mise gudaha waay su-aasha taas waay uga jawaab macnaha waxa waaye muxuu ahaa qofka marka yani meesha uu joogo diiwaangelinta meel walba iska diiwaangelin karaa online waaye diiwaangelinta laakiin foomka ayuu ku buuxsanayaa degmaduu ka soo jeedo uu degayo foomku ku buuxsanaa asagoo meeshiisa joogay sweden joogto ayay foomka ku buuxsanaya inay magaalada muqdisho degmada hebel ay ka soo jeedo ayay ku qoranaysaa marka automatical systemka wuxuu ogaanayaa qofkaas inuu meeshaas ka soo jeedo marka injineer ugu jawaab adiga ugu jawaab injineer aday ku maqashaa su-aasha ma maqashaa ma maqla aniga ma maqlashaa hadda waa ku maqlaa halka aad joogto aad ka diiwaan gelinaysaa meesha degmada lagaa weydiina degmadaad ku dhalato adiga rabtaad ku qoranaysaa hadday muqdisho tahay hadday meel kale tahay aday ku taallaa
meesha ama ku aad dhufan degaysid karaysaa insha allah halkaa marka ama aad degaysid inteen ka helaa marka foomka ma qofaan la xiriiraya waa la jirto soo oo dejin inta joogto play store ka soo dejinaysaa ama website-ka ka soo gelaysaa laba waa ku furan yihiin weli waa laakiin sheeg wuu jiray weli waa informaqunaa soo dhiibaysiin weli lama gaarin hadda marka uu soo dhamaystirmaa la soo gelinaya markaas arkaysa waa lagu sheegay idaacadaha iyo raadiyaasha meel kasta soo baxa iyo tvda iyo social media waa la soo gelinaa waa laga helaa miya telegramka waa laga helaa markaas waa laga heli doonaa hadda maaha waa laga heli doonaa soo dhaca soo gela insha allah insha allah waa ku faraxsanaa inuu hirgalo ilaahay ha ka dhigo oo shukri waa mahadsan tahay waxaan siinaynaa mukhtaar muxudiin soo dhawaaw badanka hoose oo weyn taabo oo buluuga markuu green noqdo oo cagaarto markaas su-aashaada meesha joogto mukhtaar waa lagu soo dhawaaw shukri iska xirya mukhtaar soo gal mukhtaar soo dhawaaw mukhtaar waa la soo ma waxaan siinaynaa doctor axmed maxamuud soo dhawow waqtigu muhiim waaye waqti waa naga dhamaanaya waqtiga doctor axmed maxamuud soo dhawow batanka hoose taabo weyn markuu green noqdo markaasaad hadli kartaa soo dhawow waa ku maqlaa doctor axmed waa ku maqlaa soo dhawow waad mahadsantahay sida weyn aan fursadda ii siisay si aan waqtiga soo koobo horta meeshan jooga muqdisho waa magaceygana waa axmed dabcan horta barnaamijkan in badan waan ku tixinaa waana ka warhayaa in badan waxaan rabay in macluumaadka guud ee wiigliga soo baxo ee update-ka ah in ayagoo qoraala telegramka lagu soo diyaargareeyo halka muuqaalka xoogaha oo embiyadiis aad u badan yihiin dabcan qofka intuu sugaya xogta specialka uu rabana uu soo uga helo update-ka u dambeeya wiiga soo baxay oo xaalka meeshuu marayo soo la socdo qofka telegram qoraal soo lama samayn karo walaalow haddaad axmedow ilaah ku barakay haddaad noo samayn karto waa fiicanta annaga horta hawsheenna annaga howl culusaana haysato walaalkii mashquul annagoo danteennii gaarkaa ku mashquulsan ayaa kobciya haddana har iyo habeen aan maaragtay u oranaa marka waxyaabo badan oon samayn karinaa jira oo annaga aan tankeenana ka badan marka qofkii awoodi kara meesha maadaama aan la kala lahayn oon wada simannahay oon wada leenahay yacni in adiga kaalinta aad awoodi karta inaad buuxisaa laga rabaa inaad qofna uga hebaysatid maaha walaalo badan oo hadda oo maaragtay youtube-yadooda soo dhigaa jiro maaragtay kelibyadeenna waa fiican tahay arrin fiican waaye waa waxyaabaha loo baahan inay maaragtay qof walba kaalintiisa uu qaato marka waa ku fasaxan tahay haddaad wixii cod qoraal a u bedelaysid waa jiray qof walaal aan hadda xasuusleen oo bar isku dayey inuu kismaayo joogaan umalaynaa maaragtay su-aalihii iyo wixii maaragtay inuu ka dhigo maaragtay qoraal laakiin waxaa laga yaabaa inuu mashquulay 3 isbuuc ama 4 isbuuc meelaha su-aalahoodu qoray kadibna maaragtay kadib maana arag wax abdeed ah marka inuu ka mashquulaa dhici karta marka waxaan gacmaha in lays qabsaday ku fiican tahay oo loo wada istaago gacmooda jira wax ku gooyaan marka waa kaas frequent asked questions haddaan noo samayn kartid waaba kuu duceeyhayna walaalkay allah khayr allah ku siiyo waxaan siinayaa allah barake waxaan siinayaa ninka la yidhahdo cabdi nuur naane soo dhow naane meeshaa joogto iyo su-aashaada batanka weyn oo dhex taabo meeshaa joogto sheeg iyo su-aashaana soo daa cabdi nuur naane waa lagu siiye adna iska qaad batanka weyn taabo وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وفي عنا ما شاء الله سودو الحمد لله عدك كروقات سؤال ما قبل جبهة وسان جوا كسمايان جوجا مركا هذا وحن مقلي دقمو والبا وسي غوني ما تسي ديوان غلينيسا marka halkan wax joogo oo hadda maartay wax diiwaan gelinayo oo idinka joogo miyaa jira ما diiwaangelin lama gaarin naaniyo
walaal diiwaangelin lama gaarin laakiin kismaayo liiska waa jira kismaayo liis ahaa jira oo meesha ku jiro dad badan aa jooga kismaayo oo aada loo badan yahay reer kismaayo marka afmada waa jirta xitaa iyo dhulkaasoo dhan iyo dhoble iyo meelahaasoo dhan waa jiraan marka magacaaga soo dhig maxamed cilmi guuriya hawshaas noo qaabilsan isagaa maaragtay isla markii qaaday liiskana kugu daray reer kismaayo maasanta waa dhammaad abu cabdalla maxaa noo haray abu cabdalla maxaa noo haray ما شاء الله أفرط بمرسة hala noo hara miya waaya waxaan si zakariya xaaji muusaan siinaya zakariya xaaji muuse waa nasiibkiis zakariya dadka aan magacooda weli arkan aan isku daya inaan badsiiyo weli aan soo baxo zakariya xaaji muuse soo dhawow watanka weyn taabo su-aashaada meeshaa joogto allah ku barakeeyo waqtigu waa dhammaad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu walka soo dhaw waa mahadsantiin walaalaha qiimaha badan barnaamijkan oo barnaamij aan wax badan la socday oo aad u qiimo badan horta ilaahay ha idinka abaalmariyo marka ugu horeyso ma garat wayaag marka labaad niyo waxaan rabay su-aalaha barnaamijka waqtiga uu ku habboon yahay oo bilaabanayo process inuu socdaan ogahay marka mar sanadka cusub inaan maqlaan jeclahay marka waqtigi inkastoo aan la qiyaasi karin oo ay ku xiran tahay shaqada waqtiga ee dhamaada haddana waqti lasii odorosaayo barnaamijkan macnaha uu bilaabanayo oo lasii qiyaasi karo injineer cabdiqaadir walaalka zakariya waa sheegnay hordhacan ka hadalna arrintaas iyada ah anaga culimmadaasaan ku xirannahay inay noo ansixiyaan sharcigaas keliya hadday noo soo ansixiyaan iyo inaan hal mar dowladda aan la kulanno maamulka inaan la kulanno intaa keliya noo harsay wax kaloo noo harsan ma laha maamulka kulankiisa dhib naguma hay laakiin sharciga culimmada inaan hal mar culimmada isu keenno oo presentationkii aan soo hordhigno oo kadibna aan maaragtay yacni ay sharcigii noo ansixiyaan oo haddii wax ay ku jiraan oo diinta kasoo horjeedana laga saaro hadduuna ku jirinna maaragtay saas u yidhahay wixii kaloo ay ku darayaan ayaga intaas keliya waa taasna ma qaadanayso waqti badan taas waa la socday marka su-aasha kaloo aan qabo waxay tahay waxaan ogahay in barnaamijkan waa barnaamij nus dollar ah oo midna maaragtay isheeg waalid ka ah midna adiga ku quseeyo marka qof joyce uu leeyahay oo macnaha mid dowr oo geli karaa miya mise waxaa qasaba qofku labada inuu wada galo maya qasab wax la yidhahda ma jiro qofka joyce uu leeyahay qofka qasab maahan adiga haddii adiga aad kaligaa iska bixinaysa oo waalidkaa aad wax ka bakiilaysid aday ku jirtaa laakiin haddii adiga aad jeceshahay inaad waalidkaagan wax ka bixiso adigana aad iska bixiso waa fiican tahay labadu waa ku furan tahay haddaa adiga wax iska dhaaftay oo waalidkaaga keliya aad ka bixisidna waa ku furan tahay intaba wax ku dhan kastaba waa option waaye qofka qasab wax la yidhahda ma jiraan iskuma xira labadaas qofka si waalidkiis jecel waxaa laga yaabaa haddana inuuna awoodin wixii inuu wada bixiyo exactly marka qasab maaha marka wax qasab la yidhahda ma jiraan maasha allah aada u mahadsantiin baarak allah sadaqa jaarida qasab maaha waxa waaye qofka hadduu rabo sadaqa jaariya waa bixi karaa asaga iska bixi karo waadu ka bixi karaa hadduu rabo sadaqa jaariya oo dad badan ka bixi karaa oo limit ma laha sadaqa jaariya laakiin hadduusan waxba bixi karna qasab maaha asaga xataa iska bixi karna qasab maaha marka danta guud oo lagu qabanayo sadaqada jaariyada danta guud oo lagu qabanayo qofku waxay ku kooban tahay keliya dadka xibnaha ka ah maya danta guud soomaaliya oo dhan waayo qof ka mid ah qof aan ka mid ahaynba waa dan guud ilaa danta guud waxa waaye sadaqa jaariya waa sadaqa jaariyana qofkaasi oo qabriga ku jiro waxaa la rabaa in alle inta dad wixiisa isticmaala ajru ka wada helaya marka muu xadidna kobciyo memberskeeda marka processka qaabka faa'iido lagu qaybsanayo waad sharaxdeen waan dhageystay marka ilaa qofku markuu nus dollar dhiibo sanadkii waa 180 marka sanad miyuu bixinayaa ka damba miyaa howlihii la bilaabaya inkastoo waxyaaba yaryariisa waxba aan lagu bilaabi karin mise 2 sano goormu qofku faa'iido waxay ku xirantahay walaalo waxay ku xirantahay hadba lacag dadka say usoo galaan ay ku xirantahay taas iyada iyo lacagta la helo supermarket haddii hal supermarket inuu furi karto waa lagu bilaabaya lama sugayo dad kale cusub iyo waxaas lama sugayo marka taasay ku xiran tahay marka faa'iidana waa taqaanaa oo maalgelin ayaa soconaysa oo muddo dheer soconayso maalgelintaas marka aan qiyaasnay aan odorsnay in 2 sano ugu horeeyo aan inta badan wax la rajaynaynin laakiin wixii ka dambeeyo rajada ay iska fiican tahay
haddii dadka ay tiradooda zaa'id sii noqotona waxaa laga yaabaa sanadka ugu horreeya waxaas inay noo hagaagaan oo sanadka labaad rajo aan lahaano taasaa dhici karto marka faa'iido ma waxaa lagu kala qaybsanaya sida loo soo kala horreeyey maadaama qabka saasaa loo kasoo kala horreeyey waa ka faa'iido badan yahay waa ka faa'iido badan yahaa waa mahadsan tahay waxaan siinayaa maxamed cilmi guure soo dhowo maxamed zakariya ma waa mahadsan zakariya maxamed soo dhowo محمد علم قورة سوداء محمد بطن فوسط تابو هذه والو يقانا صوصو سؤال هذا سودي maxaa cilmi guura ma gacanba ma taagine gacantu taagan waxa gacan taagan uma jeedo guura baa sax waa gacanta u taagan maxamed cilmi guura soo gal ما شاء الله هاي iska qaad batankan taabaha hoos badanka weyn taabo iska qaad bataqana muuta iska qaad makarafoonka furo maxamed cilmi guura makarafoonka furo waa kaa xiran yahay makaro taabo ما شاء الله soo dhow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك dhammaan waa idin salaamay kaliya waxaan rabay inaan laba qof oo meesha ka hadashay gabadhii garowa ka soo hadlaysa xamdi bisha 15keedii soo weydiisay su-aasha hadda caawa idin weydiinaysay luuqeedaan ugu qoray inta magaalo oo ku jirta puntland oo liisaska ay ku qoran boocamahaas iyo cabdulqaadir taxaya ayaa ka mid a magaalo kaloo xataa waxaa jirta weliga aan magaceeda maqal oo godob jiraan la yidhaahdo godob jiraan hanima maqalin kolleyta hadda ka hor liiskay ku jirtaan waan u sheegay markii dambe ma aysan dhihin iyadoo magaalo heblaayaan joogaaye maaragtay igu qormaysan dhihin marka meelaan ku qorama garan karo mar haddaysan magaaladeeda soo sheegan laakiin hadda waxaan ugu bishaaraynayaa caawa inta hadda ay hadlaysay ayay bacdima ay sheegtay inay garoowe joogto ayaan magaceeda ku qoray xamdi cabdi aadan liiska garoowe already ku jirtaa sidoo kale ninka nin waxaa jira hadda kasmay isna aad codka siiseenoo ninkii nani isaga mar horaan ku daray liiska kismaayo haddana caawa soo qoray isagoo dhahaya ha laygu daro liiska marka waxaad garanaysaa qofkii inuusan gadaal u raas raacaynin liisaskii wixii iska hubinayn islamarkaasna ay mar labaad mararka qaarkood marka waxaa dhacaysaa inaan haddaanad hubin inaad duplication samayso magacii qofka laba goor aad qorto waa runtaa sax waa marka intaasaan rabay marka inaan wada siiyo dhammaan waxaan ka codsanayaa dadka degmooyinka jooga magacooda inay liis horta ka baaraan markay hubiyaan kadib ay yiraahdaan mataa inay arkaan isku jirin hanu ku daro saasaa fiican lahayd بارك الله فيك أبو عبد الله سودو محانو هري بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا ليال غير كوبي كوبراتيف لما أنت بمدنيال يمروين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميل أتشوك تابع إلى هذه بركيو أخيار تنسي خاصة نقول دعاء لنا إن إلهي ميسانك حسنات وأسعارها والشاع ونص هل يهين بوتاقيهين walaalyaal ilaahay khayr siiyo waxa aad ii soo jiitay oo runtii ugu farxay injineer Cabdulqaadir warka uu inala soo wadaagay maasha Allah Muqdisho fadhi ku dirarkii in kobciyo loo wareejiyay oo kobciyoonka laga sheekaysto runtii walaalyaal wax wanaagsan weeye intii siyaasad iyo wax kale lagu mashquul lahaa in lagu mashquulo horumar oo dadka maasha Allah ka yidiila soo ay dadka arkeen moogta marka runtii wax wanaagsan walaalyaal ilaahay khayr siiyo marka walaalyaal sidii caadi noo ahayd waxa akhyaartu ay wadaan iyo intiina garab taaganba waa asbaabtii laakiin walaalayaal ilaahay khayr barakeeyo kobciyo inuu kobciyo noqdo awoodda Allah iskale subhanahu wa ta'ala Allahna banqaad waa in sii Allah wuxuu subhanahu wa ta'ala wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra Allah wuxuu subhanahu wa ta'ala adomadeedow cidda iga baqda hawlahoodo ana ul iyo diirkooda waa dhigaya sidoo kale Allah wuxuu subhanahu wa ta'ala ومن يتوكل على الله فهو حسبه الله سبحانه وتعالى عدي أنا يترسارت أنا كفرا مركا ولا إلهي خير السيو أنا نفتك بلاوية الله كعبسك بدينه الله ترسارنه دعاء بدينه استغفار بدينه بإذن الله إلهي وينقولني الله وحن كرر شيني لما أنت الله إنه عمرك نوبرك يا حماتك أو إنه تصو
soomaaliya oo caalam hogaaminaysa hadday noqoto dhaqaale iyo xag walba aamiin jazaakum allahu khayran baaraka allah fiikum assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله. أيوة walaasha hodan ah loo duceeyo injineer أبو عبد الله نودعي وحاوي هذا إنه لو دعية هذا شيء يونس لو دعية إنجيل عبد القادر حاسة كحانوس لو دعية أنت جرنا كبعي كوبرتي فجرتي أنت عم كجرنا مسلمين تنا لو دعية وإلهي كله تعاف ما شو إلهي متقن أنت جرنا الله عاف ما شو وعن رجينا متقنا فاتح هذا الله أغرب قفل بأضو فاتح هذا أغرب أو بري إن الإلهي متقن قفكاز مسلم كا أو عاف ما شو هذا أنا أجره لسه إن شاء الله إلهي ناكو عاف ما شو ما توحيد باتك كويس الله كاقاض أبو عبد الله ساسم سوحرنا إن شاء الله هيا السلام عليكم ورحمة الله مين وبركاته أدعينا بارك الله فيك جزاكم الله خير هيا السلام عليكم